Xiriirka sumaysan wuxuu kaa shaki geliyaa qiimaha naftaada, balse xiriirka caafimaadka qaba wuxuu ku dareensiiyaa qiimaha naftaada. Assalaamu calaykum. Waxaan ahay Qaasim Maxamed. Ku soo dhawow muuqaal kale oo muhiim ah. Maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuc si gaar ah u saameynaya noloshaada oo ah xiriirada sumaysan. Xiriirada sumaysan waxay saameyn taban ku leeyihiin caafimaadkaaga maskaxeed, jirkaaga iyo guud ahaan mustaqbalkaaga. Marka hore aan isla fahanno waxa laga wada xiriir sumaysan. Xiriirka sumaysan waa mid aan ku dhisnayn ixtiraam, qadarin, taageero iyo wanaag, balse ku salaysan dhibaatooyin kala duwan oo nafsi ah sida cadaadis joogto ah, dhaleecayn aan joogsi lahayn, hagar qarsoodi ah, ballanka bax, daryeel iyo dhiirigelin la'aan. Ama xiriirka sumaysan wuxuu kugu noqon karaa in aad la kulanto qof danaysta ah oo danihiisa gaarka ah ka hormariya kuwiinna, qaata go'aanno isaga u gaar ah oo u adeegaya danihiisa gaarka ah, kaa hor istaagaya inaad wax ka weydiiso mid ka mid a ficilada aad dhibsato uu kugula dhaqmo sababtooda, iyo waxyaabo kaloo badan. Xiriirada noocan ah waxay saameyn ku yeeshaan dhammaan dhinacyada noloshaada sida caafimaadkaaga maskaxeed, awooddaada go'aan qaadashada, iyo farxaddaada guud. Waa muhiim inaad awood u yeelato aqoonsashada xiriiradaas oo aad ka shaqayso sidii aad uga bixi lahayd ama aad wax uga beddeli lahayd. Maxaa lagu gartaa xiriirada sumaysan? Xiriirada sumaysan waxyaabaha lagu garto waxaa ka mid ah cadaadis iyo eedayn joogto ah. Xiriir kasta oo aan ku siinayn farxad, oo halkii aad ka filanaysay taageero iyo garab istaag, kuugu abuura dareen walwal iyo niyad-jab leh, waa mid sumaysan. Haa, waa xiriir sumaysan. Qofka aad xiriirka la leedahay ayaa kuu sheegaya mar walba waxyaabo dhaawacaya kalsoonidaada nafeed, kaana dhigaya qof mar walba ay u xabisan tahay naftiisa, hadallo uu ku qalbi jabiyey qof uu ku kalsoonaaday, ka qayb qaadasho la'aan iyo awood xumo. Marka aad ku jirto xiriir sumaysan, qofka kale ayaa inta badan kuu diida ama kaa hor istaaga fikrado aad ku horumarinayso xiriirkiinna, kuna gaaraysaan guulwadareed, balse qofka kale aanan diyaar u ahayn ayaa ku dhaxal siinaysa inaad noqoto qof ka dhacsan awooddiisa iyo xorriyaddiisa. Dareen xun iyo farxad la'aan. Marka aad ku xiran tahay xiriir sumaysan, waxaa laga yaabaa inaad dareento walbahaar joogto ah, niyad-jab iyo farxad la'aan ku saabsan noloshaada oo dhan. Tanina waa calaamad muujinaysa in xiriirkaagu yahay mid sumaysan oo u baahan in wax laga beddelo. Kala duwanaansho ku salaysan isku dulqaad la'aan. Xiriirada sumaysan waa kuwo aan lahayn isfaham iyo dulqaad labada dhinac ah, iyadoo qofka kale uu mar walba ka hormariyo danihiisa gaarka ah danaha guud ee xiriirkiinna, iskuna dayaya inuu kaa dhaadhiciyo in aadan fahmin isaga oo aad tahay qof xun. Maxaa lagaaga baahan yahay in aad samayso marka aad dareento inaad ku jirto xiriir sumaysan? Garashada inaad ku jirto xiriir sumaysan. Tallaabada ugu horreysa waa in aad si dhab ah u aqoonsato inaad ku jirto xaalad aan caafimaad qabin. Waxaa muhiim ah inaad isweydiiso, xiriirkan ma iga dhigayaa qof wanaagsan, mise waa mid ii keenaya dhibaato gaar ah? Haddii ay jawaabta kuu soo baxda noqoto mid taban oo adiga lid kugu ah, kuma muuqan doonto sabab aad u sii danayso xiriirka. Waa inaad qaadato tallaabooyin isbeddel oo dhab ah oo aad dib ugu dayactirayso ama aad aga takhallusayso xiriirkan. Isku kalsoonow oo xiriirka go'aan ka qaado. Isku kalsoonidu ayaa ah mid muhiim u ah marka aad go'aansanayso inaad xiriir sumaysan ka baxdo ama aad beddesho jihada uu u socdo. Waa inaad iska ilaalisaa cudurdaar kasta oo kaa hor istaagaya inaad xiriirkaas joojiso ama aad dib u saxdo. Tusaale ahaan, waxaad ku dhihi kartaa qofka aad xiriir wadaagga la tahay, waxaan u baahanahay xiriir i caawiya oo wax igu kordhiya, balse uma baahni mid wax u dhima dareenkayga, qofnimadayda, hadafyadayda iyo guud ahaan noloshayda. Raadi taageero. Marka aad aqoonsato inaad ku jirto xiriir sumaysan, aadna go'aansato inaad gebi ahaanba isaga baxdo xiriirkan ama aad wax ka beddesho, ha isku dayin in aad kaligaaga xalliso, balse la kaasho mid ka mid a saaxiibadaada kuugu dhow, qoyskaaga, ama xitaa qof ku takhasusay arrimaha cilmu nafsiga si uu kaala taliyo, kadibna uu garab kuu noqdo.
waxaana kaaga digayaa in aad sirtaada la wadaagto qof kasta, waayo qof kasta ma ahan qofkaaga. Baro inaad dhisato xiriir wanaagsan. Xiriirada caafimaadka qaba waa kuwo ku salaysan ixtiraam, kalsooni iyo taageero labada dhinac ah, isku hadaf iyo isku dan ah. Ku dadaal inaad naftaada ku hareeriso dad wanaagsan oo aad xiriir wadaag noqotaan. Ku tiirsanow Alleh. Diinteenna Islaamka ah ayaa ina baraysa in aan Alle u kaalmaysano go'aan walba oo aan gaarayno, oo Alle weyne wuxuu inoogu sheegay qur-aankiisa, fa-idaa cazamta fatawakkal cala Allah. Markii aad go'aan gaaraysaan, Alle u tala saarta. Duko salaatul istikhaara oo Alle weydiiso in uu ku waafajiyo dariiqa saxda ah si aad aga takhallusto xiriirada sumaysan. Oo waxaad maskaxdaada ku haysaa qofkii uu Alle u hiiliyo in aysan u baahan garab kale. Samee xulashooyin caafimaad qaba. Xulo dad kugu garab istaagi kara inaad gaarto hadafyadaada nololeed. Ku xoojiya naftaada. Kula wadaaga wanaagga. Ha iloobin in xiriirada caafimaadka qaba uu ku dhisan yahay faa'iido labada dhinac ah. Haa, faa'iido labada dhinac ah. Oo ma jira xiriir iskiis iska guulaysta, balse wuxuu ku guulaystaa in labada dhinac laga helo rabitaan, ixtiraam, taageero iyo weliba isku hadaf inay noqdaan. Xiriirkaas ayaa noqon kara mid lagu wada farxo. Kadib maxaa kuugu xiga? Haddii aad dareento inaad ku jirto xiriir sumaysan, u diyaar garow inaad samayso isbeddelka lagama maarmaanka ah. Isbeddelkuna wuxuu noqon karaa in aad si toos ah ula hadasho qofka aad xiriir wadaagga tihiin, adigoo uga faaloonaya dareenkaaga. Haddii aysan taasi shaqayn, waa inaad si degdeg ah uga fogaataa xiriirkaas si aadan u lumin caafimaadkaaga maskaxeed. Waxaadna maskaxda ku haysaa in xiriirada sumaysan aan laga dhaxlin waxaan ka hayn caqabada nafsi ah oo naftaada dib u jiidaya mar walba, kaa shaki gelinaya inaad tahay qof wanaagsan oo u qalma nolol wanaagsan iyo qof wanaagsan. Ugu dambeyn, haddii aad ku jirto xiriir sumaysan, ogow inaad xaq u leedahay xiriir caafimaad qaba oo ka wanaagsan midka aad hadda ku jirto. Waxaad u qalantaa xiriir ku dhisan ixtiraam, wanaag iyo kalsooni. Ha ku lumin waqtigaaga qaaliga ah xiriir aan hor u socod lahayn, xiriir aan natiijo lahayn, xiriir aan rajo ku dhisnayn, xiriir aan laga wada dhexlaynin faa'iido labada dhinac ah, adigoo isbeddel ku samayn kara ama ka qaadan kara go'aan kama dambays ah. Waxaan rajaynayaa in muuqaalkan uu wax ku kordhiyo naftaada, aadna ku dabaqi doonto noloshaada. Inta aan goordhow u wada kulmi doono muuqaalka xigana, waxaan ku leeyahay aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. Mahadsanid.